بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يوم مقعد محمد أحمد شيخ إسماعيل محمد شبالي أكتنا كلية Public Administration جامعة عمود. حدان رأيي كده بتشركة أصلا وصوت حقيقي. أنا وحاور كائن الصوماليان شركة الدنيا هيك سكرتان كيلو حي لي الصومالي وحصل التوصيل كريمها جودها خاصة لدك مسيسة حي معمل أماسي قريب كترسان سأل أجل كل كهرباء شركة وعشر لجو يرسين الصوماليان وهوس لجو بيجي ما دام تسجيلتين كسوق عرو كسوق الشمال لا صحرانا وحمر كانوا قلت بمركع لكن وحلا هاي الشركة هذه اللي قال يوان شيء صح الله قال وسير كريمات دي بس هما كسوق قلب قال لكن وسير أهرمت جديد وحق القلم ما حلا يشتغلن إذا كنا وقت فشل أنت ما الله مرة كانت تجسين فشل بعد هذا ما الله ما دام سويح إنه فشل منا وأنا كسب باردتين عدة الله كل مسام إنه وسير كريمات دي بده يعرف كذا ينو كريمات جديد markaan waxaan arkaa dad soo dhaqmaysan hadii qayb ka mid ah dalaq basheen oo in la fariisto wasiirka arrimaha gudaha laakiin waxa la yahay wax laga baaran degay baan loo tabaabay yahay dadka geeyaysan dad ahaan noqdo loo kalsooyay hadii aan ka hadlo shirka ka dhacaya Istanbul ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku wada hadlayaan anu fikirkayga hadii aan dhiibto waxaan qabaa Soomaaliland shirka ay ka kacday inaana ay ahayn wax loo baahnaa laakiin aan jeclahay inay fadhiisato wixii jirana ay sheegato wixii dhiman xagga dambe ay ka soo guurto wali waxaan arkaa fikirkayga inuu sida uu yahay رأيي هو أدنى الصومالي سومالي ترنتي والهذا الكلام في السماينة يوم عيدين وقت هراء السنة وفكرة عن واحد بعني لون أكسنيد وهذا لذا اللجوء السماية ضل في الجديس وما توارجي ساعته أما مقدشاته أدوك سيسوي وضع الجديس اللي هو السماية عمر هربين ده وضمك اللي تيجي وضمك الماضي اللي يجي أنا وصومالك والله ورتارين تاول لجوء أكسنة ما يسوي لك فكرهان سوى كلامك سوى بجتا أنت تأكل جناي ولا ليه أوشى وهذا الكائن سماينة يعني بل وحي دبعتين سوق المرتي وحي هاوش هذا الكتاب اللي ما أنت ليش يبل حلسوا تناسلوا على الإسلام وعملنا يعني ما أنت مال واحد كنت ساجنتها يلوك على كعمر حلال يوفر الجورين كانوا عندنا وهذا الكلام لبض نبي يجوا مركز الشجانة يدنا أو بقى عرب الشجانة يعني مركز لبض المسؤولين بالعتي مركز عرفتوا يكوين تاين يجوا عرمان أيوة الشجانة يعني واللي شروطها أنا وإحنا نصور لقي لده الرقوق waxaan xaggan ma arkay aan aragtiyahan ka cadeynaya ma ka cabiraya in muuqsoon tahay wada hadalada waxa weey Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hay waxa weey fashilmeen qaabka ay u fashilmeen waxa ay in ma arkay Soomaaliland ay qaabkii waxa weey qorshaha ay u weetay inay hay ka majraxdaabtay ama waxa weey hay ka weecatay taasina waxay maalsiisay in muuqsoon tahay macnaha waxa weey wada hadalkii sidii muuqsoon tahay saxda laga rabay ee ugu sanbanaaday inuu waayo oo waxa weey ka lagu fashilmay sababta ugu weyn waxay tahay waxa weyn wada hadalku marka hore waxa qurux badnaa in dawladda federaalka Soomaaliya qaabkeed doontay marka waa tabe in la galinba wax qorshaha oo ku saabsan musuulta maxaa wada hadal hadii si lala galo waxa qurux badneed oo qiimo lahayd in waxa weyn cid alla cid doonto doonana keenane in musuulta lala guriyo oo hawsha waxa weyn sidii ay maartay processkaasi ama waxa weyn ay u socon lahayd muxuu ahaa wada hadalkaas u socon lahaa in musuulta muxuu ahaa dariiqeygii la maro la saxo la san banaaneeyo bismillahir rahmaanir rahiim haddii aan isku dayo ra'yi runtaas wallahi waxaan arkaa annaga haddaan nahay Soomaaliland guul shirka lagu kala kacay ee Turkiga ka dhacay waxaan ku faraxsanahay lagu kala kaco annaga waxay noo tahay horumar iyo guul maayo midnimada Soomaaliya ma ogola qarriyo gool isku taaga Soomaaliland waan taageersanahay waftiga ka tagay Soomaaliland ee Turkiga u tagay wada hadalka ee waxa leeyahay xukuumadda Soomaaliyana ee waxay maamul Soomaaliland ku soo taagan oo qalad iyaga dhexdooda haysta jubooyinkii shabeelooyinkii gobolka dhan ee maamulka banaadir raaxada gudihiisa haysta waxaan leeyahay mar labaad leeyahay waxaan taageerayaa oo aad u hambalyeynaya waftiga naga tagay Soomaaliland ee tagay Turkiga ee ka soo horjeesaday wada hadalkii mar iyo labaad oo taageeraya